waxaynu wada arkaynay maalin dhaweyd inaan hableena kamida waxa laga yaabaa iyadu inaan islahayn qalad baad samaysay oo mas'alo weyn ka hadashay oo tiri ninku hadduu gabadhiisa qasbo oo gogosha ay ku diido oo qasbo uu kufsaday oo arrin aad iyo aad u halis weyn kufsigu waa zino ileen zinadu midna ridaa bay ku timaadaa labada qof ay iskaga raali yihiin midna waxay ku timaadaa jujuub iyo afduubun waa zino xukunkiisu marka uu socdo kufsi aakhirka waa zino waa laba qof oo aan isgeyin laba qof oo isku xalaal ahayn oo isu galmooday way ama ridaha isugu galmoodaan ama jujuub ay isugu galmoodaan labadan qof waa laba qof oo isu xalaal ah nikaax iyo aqd iyo meher sharciya baa isugu dhacay gabadhu marka hore xaq ba uma leeyahay ninka diido sharciyan xaq uma laha waayo labadan qof waxay isugu yimaadeen ba inay isku dhowrsoonaadaan sida ninkuba ay culimada qaar tilmaameen jawaahirtu siday mareen badanka culimadu haddii gabadhu ninka ay ka dalbato in maaragtay waxa weeyaan gogasha ay ugu yeedho oo awood u leeyahay inuu diidaa ma banaani waa waajib inuu aqbala وهكذا المرأة gabadhina waa sidaa xuquuqda ninku gabadhiisa ku leeyahay iyo xuquuqda gabadhu ninkeeda ku leedahay ayuu arrinkani ka mid yahay marka waa arrin dabada ku haysa afkaar gaalo iyo in dumarkii loo tusay inay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي